السلام عليكم adoo wanaag arkaya xumaan ha ku raadinin in aan noqotid sababtoo ah dadka maanta ku sacbatumaya maalin ay wax kugu hobsan doonaan waa kii goobjoog ka ah in ay god madow lagu mitro ay kugu ridaan maalinkaasna soo ku tareenin aan ayaa ahayd imise qof ay aan ahayd oo maanta naga hooseeya waxa la hadlayaa waa fahmi kartaan oo maleynaya waxa la hadlayaa waxay tahay gabdhaha iyo wiilasha maxaa ku raada aadka u soo badanaya ay isticmaala baraha bulshada ku raadinaya xumaan inay caan ku noqdaan caanimadu waa wax ka mid ah nolosha balse ma aha nolosha oo dhan inaad noloshaada oo in aad noqoto qof caan ah inta aad nooshahay oo kaliya ayaa magacaaga la sheegi doonaa haddii aad dhimatidna maalinka dhintay dad ugu dambeyn doono laga yaabo in maalin maalmaha ka mid ah lagu soo xasuusto xumaantii aad samaysay ama muuqaalkii aad YouTube ka gelisay ama TikTok ha noqdo ama Facebook lagu soo xasuusto balse laguma dhigi doono qofkan wax uu faa'iideeyay laakiin dad badan ayaa qalbiyada ka habaari doono oo markaas joogo marka waxaan leeyahay dadka baraha bulshada xumaanta ku faafinaya ilaahayna ay soo hanuuniyo ummadana fasaahadina adikana fasaahadina haddaad adinka isfasaahadisaan naftiina unba dhibteen cid wax u geysateen malahan shaydaanka maanta qiyaamo waxa la jiray markii meesha uu soo istaago wuxuu dhig doonaa xoog miya aniga idinku soo raaciyay dariiqayga markaas hadee waa ogtahay shaydaan badan ilaahay la galay badantu ilaahay ka qaadan waxa uu in ummadiisa dhan baadiyo doono marka walaalo adigoo wanaag arkay xumaan aan ha ku noqonin bariyan dam waxa aad u soo batay dhalinyarada ku kala nool daafaha caalamka meesha doona aad gaar ahaan waxa ka hadlaya ku Soomaalida waxay noqotay qofka inuu wax walba caan ku noqdo si uu u sameeyo magac oo wax uu doono u sameeynaya waxa arkaysaa dad ajaanib kala ah oo TikTok live ina soo galaan waxa ku hadlayaan dhageysan karin nus saac iska daayay aan 1 second hadan dhageysan karin waxa wax aad loogu xumaado waaye barnaamijkan ugu talgalay ma ahayn balse wuxuu ahaa barnaamij si kadis ah aniga oo Facebook ku dhex jira arkay maxaa ku raad waxa ogtihiin dadka dhan way ogyihiin baraha bulshada isticmaala waxa leeyahay ilaahay ninka cabsada maxaa ku raad waxyaalo badan jira oo dadku u baahan yihiin oo lagu faa'iideyn karo midna ogaada qof waliba oo xumaan bartiis soo galiy ma aha wax dheel ugu baxay doona meeshaas ma baxay doonaan waa wax ku jira doona laga yaabo in 200 sano 500 sano ay ku jiraan midna ugu qof waliba oo daawada oo maxaa ku raada muuqaalkaas xumaanta ama shaxumada ka tarjumaya aad umada u soo bandhigtay qof waliba oo daawada adiga dambiga ayaa ku leedahay hadhow waxa dhig doonta ka toobad keenay toobad ilaahay mar walba furan tahay laakiin waxa loo baahan yahay adigoo og dambigi oo haddana ku dhex jira dhaar bariya ka toobad keen doona toobadaas aniga ma aqaano sida ilaahay ku aqbal doona ma ogi laakiin waa adiga ilaahayga laakiin waxa ku wanaagsan oo magac maamuus iyo qadarin iyo ku ah iyo maxaa ku raad adduun aakhira kulli baanaysa waxay tahay inaad xumaanta iyo waxyaalaha aad umada ku fasaahadinaysaan anigu ahaan maxaa leeyahay qandaraas maxaa ku raad galbeedka laga soo qaatay inay tahay in dhalinyaradii wax tarka ahayd maxaa ku raad lagu mashquuliyo baraha bulshada gaar ahaan ardaydii iskuulaadka jaamacadaha dhiganayay ayaa waxa arkaysa ay laamiyada bartamahooda taagtaagan ama uniformka iskuulka iyo buugaagta jaamacadda wata aadna muuqaalo duubayo qofka bini'aadanka ahi waqti walba wuxuu la nool yahay xaaladda deegaanka ama bay'ada uu ku nool yahay ayuu la mid yahay waxa loo baahan yahay inaysan ku bedelan bay'ada adiga ku nooshahay waxa loo baahan yahay adiga inaad bedeshid waxa loo baahan qof saameyn la inaad noqotid laakiin ha noqonin qof wax walba soo dhaca ama meel ka imaada la aqoon ee saameyso oo dabeesha hadda meesha u dhaqaaqa adigu qof bini'aadam ilaahay ka dhigay aqal ilaahay ku siiyay nimcada uu ilaahay siiyana waxa kamid ah islaamnimada waxa nimcada ugu weyn taasana macnaha adiga loo macnaha ku xadidaysa oo waxyaalo badan dadyaha kale ku dhaqmayaan dhaqankooda ah ama dadka TikTok iskala ama Facebook wala ahaato ma ognahay in waxaan qof muslim lahayn waxa waaye dhibaato weyn ayaa jirta dadka laakiin ku baraarugsana in waxa jeclaan lahaa in dadka
maangalka ah ee aqoonta u saaxiibka ah mise culumadii Soomaaliyeed waxaa muddo inay ka gaabiyeen inay dadkii wacyigeliyaan ayaguna ma aqaana waxay ku mashquulsan yihiin way jiraan kuwa ka hadla laakiin waxaa loo baahnaa lahaa inay maalin walba ka hadlaan ka digaan waalidiinta ku iftiimiyaan macallimiinta iskuulaadka jaamacadaha kuwa dugsiyada dhiga madrasooyinka dhammaan laga wacyigeliyo sababtoo ah maanta guri walba waxaa yaala 6 ama 5 telefoon qofan telefoon haysan ma jiro qofka duu 12 12 soo gaaro haddii telefoon loo gadin waalidka ayuu la dagaalayaa laakiin haloo gadan ma xuma laakiin waxa lagu adeegsan karaa dhanka wanaagsan waa loo adeegsan karaa dhanka xumaantana waa loo adeegsan karaa telefoonada iyo kombiyuutarada laakiin waxa ka badan inta xumaanta u adeegsanaysa mar walba waxa arkaysaa hal qof oo wanaag soo dhigay baraha bulshada waxa arkaysaa oo qof walba ama laga yaabo inuu ka hadlay xadiis ama aayad oo ka hadlay waxa arkaysaa culimada waaweyn ee lagu degan yahay dhalinyaro oo maxaa ku yiraahdaa aan cilmi u lahayn masaa'isha ninka sheekha ka hadlayo iyo wuxuu ka hadlay ujeedada ka hadlay isna fahansaneen haddana community waxa ku arkaysaa waxyaalo aad loogu yaqsoodo oo maxaa ku yiraahdaa oo aad loogu naxo oo isleedahay dadkan xaggee u socdaan walaalayaal Ilaahay ka cabsano waxa lagu socdaa wadadii maxaa ku yiraahdaa baaba ummadna daaragtid hadii laga soo galo xagga akhlaaqda waa ummad baabaaday waa ummad hadii lagu baahay in la jirid gooyo la baabi'iyo waxa laga soo gal xagga dumarka laga soo gala waa ogtihiin fitnadii ugu horeysay maxaa ku yiraahdaa adduunka dhacda waxa keenay dumarkii hadda u badan waxyaalahan maxaa ku yiraahdaa hadda laga digayo baraha bulshada inay isqaawiyaan in jirkooda isku dhajiyaan inay wax walba sameeyaan hada waxa maraysa maanta xibinta taranka soo bix la yiraahdo wax aad loogu naxawaayo xaqiiqatan dadka baraha bulshada ku wada jiraan anagu qayb ka nahay balse uma badnin hadda runta ka hadalno howlaheena kala ka badan laakiin waxyaalo laga aamusi karaa jira sababtoo maanta qof walba waxa waajib ku ah inuu ka hadlo wixii xumaan u arko al-amru bil ma'ruf waxa tahay qof walba waajib saaran waaye haddii aadan hada ka hadli karin maanta Ilaahay wuxuu furay meel walba ka hadli kartaa minbar walba qof ka hadli karaa telefoonkaaga daa haysatid waxa ka hadli kartaa facebookkaaga whatsappkaaga group ku dir kartaa laakiin dadka wanaag waxa u baahannahay inay kacaan ay ka digaan xumaantan maxaa ku yiraahdaa soo laba kacaynaysa maalin walba jid cusub oo la aqoonin la furaayo hadalka waa badiyo ama leeyahay hadalka dubatan inta kale masaxaya waa maasantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi.